بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. بسم الله ilaah mahad iskale soo dhawaada dhammaan ardayda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee daafaha dunida ka wada daawan doonta. waa walaalkeen samafale macalin jaamac ah oday degan Sweden oo jecel inuu walaalihii la qaybsado wixii yaraa ee uu bartay inuu walaalihiisa kala gaarsiiyo iyadoo aan wax laaga iyo wax adduuna midna aanan ka doonin alla dartiis. walaalayaal waxaanu bilaaban doonaa casharkan oo ah baarmanka afraad. waa baarmanka afraad waxaa ku qoran baarman 4 waxaa ku qoran fakeed baarman 4 ayaa ku qoran baarmanka afraad waxaana soo bilaabmaya number 25 ilaa intaan socodsiin karno. baarmankan waxaa lagu baranayaa baarkeerinada ayaa lagu baranayaa baarmanka. waayahay su-aasha koowaad waxaa layna weydiiyey vad gäller efter betefedmark calaamadan kadib maxaa shaqeynaya lagu yidhi calaamadan kadib maxaa shaqeynaya faham. marka haddaynu sidaan u dhigno walaal baarak allah fiikum marka hore labadan calaamadood baynu kala saarayna. calaamadan wareegsan ee egiska macnaheedu waxa weeye mana istaagi kartid kuna baarki garayn kartid. baarkeerin horta totally laguma ogola balse iska daa baarkeerina inaad istaagto baan lagu ogolayn xataa qofna aad ku dejiso qofna ka qaado. calaamada markaan waa calaamadihii mamnuuciina waynanu abtirinaa. calaamadani waa ina iyo waa ina mamnuuc casaankaasaa lagu gartaa wareegaa gudaha wixii doonaha ku sawirnaadaan waana calaamadaha baarkeerinka sheega. laakiin calaamadan haddii calaamad la hoos dhigo macna u yeeshaa. xaggan hore baa lagu yidhi waa xaggee aanan ku baarki garayn karin ma xaggeeda dambe mise waa xaggeeda hore. waa xaggan hore waa dhinacan hore ee calaamadda aan arkayo iyo wajahada igu horeysa markaan calaamadii arko wixii iyada kasoo horeeya oo dhan laguma baarkin garayn karin. laakiin su-aasha lagu weydiiyey waxa weeye after betefedmark kadib maxaa shaqeynaya lagu yidhi kadib. su-aashuna waa saxda waa su-aashuna halkan bay sax ku tahay sida soo qabo waatan su-aashu sidan bay sax ku tahay. duvoor baarkeera waad dhigan kartaa waad ku baarki garayn kartaa sababtoo ah waxaa layga mamnuucay waa horteedan inaanan ku baarkin garayn karin laakiin dabadeeda laygama mamnuucay. marka hadday jiri lahayd calaamad kaloo tan falaashkan maadaama uu hoos u jeedo falaashkan hadday tu kala jiri lahayd oo xagga shishe usii jeeda labada dhanba way noqon lahayd laakiin iminka waa xagga hore. markaa su-aashaasi saas ayay sax ku tahay. waxaan isku daynaa inuu saxno. waayahay 26 su-aasha hore waxayd 25 26 baa layidhi vodina betefedmarket kumbanakhuni haddana si kalaa lagu weydiiyo waxaa lagu yidhi vegmarkan iyo calaamada hoosta uu ku wato vegmarket kumbanakhun wax la yidhahdaa markay waxyaala isku biiraan
dhowr shay la isku dhufto la isku dhirbaaxo marka waxaa lagu yidhi waa maxay fedmarketkan iyo arrimo wadajirkiisana muxuu macnuhu noqonayaa baa su-aashu waa 26 marka waa sidii imakaan kuu macneeyey weeye laakiin faraqa u dhexeeya waxa weeye tii horeen kuu macneeyey walaal waxay ahayd egs bay ahayd laakiin tan walaal waa jiitin keliya marka labada calaamadood ee baarkeeringu way isku egyihiin faraqa garo waxa u dhexeeya midna waa egs midna waa calaamada jiitinta waa maxay haddaba labada calaamadood faraqa u dhexeeya calaamadan iminka waxa weeye mamnuuc baarkeerinku totally waa mamnuuc mar hadday sidan tahay waan egaskii ahayn horta baarkeerinkii waa lagaa mamnuucay kow maadaama aan egas ahayn laakiin maxaa lagu ogol yahay waxaa lagu ogol yahay wax kale maaha waxaa lagu ogol yahay inaad qofna ku dejin karto qofna ka qaadi karto macnihii waad istaagi kartaa waad istaagi kartaa intaad istaagto qofna waad ku dejin kartaa qofna waad ka qaadi kartaa alaaba waad ka qaadi kartaa alaabna waad laakiin waxaa mamnuuca inaad ku baarkin garayso intaad gaarigii dhigto aad muftaxii qaadato aad la lugayso kadib laakiin isla sidii unbaa lagu fahamsiinaya calaamadani markaa maxay leedahay mar walba calaamadu maadaama ay wajahadaydan usoo jeedo waan arkaya calaamadda wajahadan maxay iminkan ay sheegaysaa kuma baarkin garayn kartid xaggan ka horeysa xaggan hore efter maaha foora xagga hore calaamadan horteeda kuma baarkin garayn kartid weya su-aashuna sax waxay ku tahay اللهم صل على محمد واتم سؤال وسيلة دي اد فوربيودت وممنوع أتبار كيرينات كبار كن قرايسو فورا ديتا في الماركت سيدي أمبالغو شيئا وحلوغو حافظين يا علامات ممنوعة هدي علامة دي كوسيسو inaanad dhigan karin ood fahanto baa lagaa doonaya marka xaggan ka horeeya kuma baarkin garayn kartid baa lagu leeyahay su-aashuna saasay sax ku tahay waana sida soo qaad marka labadii calaamadood ee layna kala tusay mid egas baa saarnayd oo waxay ahayd ismana taagi kartid kumana baarkin garayn kartid tanna egas maahay waxay ka hadlaysaa unu baarkeerinku mamnuuc yahay laakiin la istaagi karo laakiin labadan calaamadood ee labadoodaba raacay xagga hore unbay mamnuucayaan inaan lagu baarki garayn karin waaya toddobiyo labaad weli baarkeerinadii baynu ku jirnaa maxaynu yidhi calaamadaasi waa maxay waad istaagi kartaa laakiin kuma baarki garayn kartid waynu garanaa calaamadda waaya hoos baynu usoo degeen calaamad markay hoos calaamad kala timaado amar bay bixisaa waxay doonta ha noqoto waa goorma maalmaha aananu ku baarki garayn karin haddaba waa maalmahee waa isniin ilaa jimce 7 ilaa 14 maalin kasta waa isniin ilaa 3 ilaa 4 ilaa khamiis ilaa jimce 5 cishay shaqeeyaan waayo wax qowsa male asaana maaha maalmaha dadkan waxay u kala saareen 3 maalmood maalinta axad oo ay yaqaanaan casaan oo waa ina axadiimka kuma jirto labadanba waa midig axadi hadday ku jiri lahayd casaan bay noqon lahayd
iyo maalinta sabtida oo ay qowska raaciyaan qowska iyo maalinta isniinta ilaa jumcaha oo bilaa qowsa ama bilaa casaana waayo maadaama aynu garanay inaan lagu baarki garayn karin waa la istaagi karaa laakiin laguma baarki garayn karo maalin kastoo isniina 7 ilaa 2 duhurnimo laguma baarkin garayn karo maalin kasta oo sabtiyana 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo laguma baarkin garayn karo intaa waan isla garan laakiin istaag waa la istaagi karaa ayaynu markaynu intaa kala fahanay baynu waxaynu doonaynaa halkan inaynu ogaano Allahumma salli ala Muhammad duu baarkeera dimbi loo dhac gaarigaaga waxaad ku baarkin garaysay halkan loo dhaag baaba soo baxday loo dhaag waa sabti marka hore waa inaan qawaacid ka eegtaa maalmaha kale ku mashquuli maayo loo dhaag baan kuma maalintaasaan sabtida ku mashquulay duu baarkeera dimbi loo dhaag saacadu markay ahayd shuugu nool waxa weeye shuugu nool 8 weeye 8 habeenimo ayaad gaarigaadii ku baarkin garaysay oo sabtiga 8 habeenimo waayo sabtidii waa tan inoo soo deji sabtidii waa tan goormu ku dhannaa baarkeerinku ilaan 18 wixii ka dambeeyay waa free ilaa 10 subaxnimo intay gaari halkaas 18 wixii ka dambeeyay waa free soo maaha 10 ka bilaabay ilaa intaas baarkeerinku mamnuuc yahay 18 baa ugu dambeysay maalintii sabtidii anna waxaan soo dhigay 20 okay maadaama 20 soo dhigay horta waa free oo wax lacag laga qaadi maayo waan halkan waa free waaya muxuu hadaba yiri dhibic naar foodo seenastahamta den goormaad ugu dambeyn ka qaadaysaa gaariga goormaan soo dhigay 20 oo sabtida iyadoo saacadu markay 20 tahay masjidii habeenimo waxaanu ku dhannaa baarkeerinku 6 habeenimo 20 markaan soo dhigay uu iska oleeyaa gaarigaygu okay markuu yaala gaarigu goormaan ka qaadaya maalinta ku xigtaa waa maxay maalinta ku xigtaa waa axad ayaa ku xigtaa waaya mar haddaan soo dhigay 20 halkan ama 8 habeenimo aan soo dhigay waa free gaarigu wuu iska oolayaa maalintaa wuu dhammaysanayaa gaarigu sabtidii waxaa soo gelaysa maalintii axaddiina casaankii waa free oo casaanba meesha kuma yaallo ha yaallo waayahay goormaan markaa ka qaadaya maalintii isniintii baan gaaray isniintii halkaa 7 wixii ka dambeeya waa mamnuuc soo maaha okay markaa su-aashu saasay sax ku tahay waa mondag kolokaan huyu noolno waxaa lagu fahamsiinayaa marka inaad fahanto walaal inaad kala fahanto 3 maalmood aad kala fahanto 7 ilaa 14 mar haddaan qoys ku jirin waa maalmihii caadi 10 ilaa 18 waxa weeyaan oo qoysku ku jiraana waa sabti axadina meesha way ka maqan tahay marka haddii axadi meesha ku jiri lahayd axadda xilligu ka bilaabmaya ayaan ka qaadi lahaa taa macnaheedu waxay weeyaa axaddu waa free marka goormaad ka qaadaysaa baa la yidhi ugu dambays ilaan gaarigii inaad ku baarki garaysaa doonaysaa iska yaallo marka aan mar kale ku celiyo waxaan soo dhigay watan la weydiiyey loo dhaag waa sabti baan soo dhigay 8 habeenimo ama shuugu nool ama 20 wuu iska oleeyaa markaa gaarigu ha yaallo maalintii kale axaddii soo gashayna waa free oo axaddii saacadi kuma taalo isniinta goormuu bilaamayaa baarkeerinku wuxuu bilaamayaa 7 isniinta 7 subaxnimo ayaa ka qaaday
su-aashuna saasay isniinta sax ku tahay. stage adigu degan waxaan ka shaqeey deganaan kaga shaqeey hadalkaygana aada u buux waya sideed iyo labaatan baynu gelaynaa maasha allah tabaaraka allah. 8 waa isla sidii oo kale walaal baaraka allahu fiik sidii oo kale weeye waxaan isku dayaa balada ardayda laftooda inaan u yeero sidii oo kale way waan soconayaa insha allah. calaamadan baa haddana laynagu soo celiyay walaalkayga qaaliga ah oo aada u faham. halkan su-aashu way ka duwantahay jiyo waxaa lagu yidhi filkan boston de rated halkan maxaa ka saxbaa laguma sheegin wax kale laguma cayimin laakiin caqliyan inaad soo saarto ayaa lagaa doonayaa walaa. halkan marka koowaad waa inaad garato calaamadani maxay ahayd u abtiri waa ilmo mamnuuc waaya. lambar 2 waana baarkeerinadii. lambar 3 gudaha maxay sheegaysaa gudaha waxay sheegaysaa laguma baarkin garayn karayna baarkeerinkay diidaysa inaad dhigto oo aad ka tagto gaari. laakiin mar hadday xariiqaa dheer leedahay oona egaska ahayn qofna waad ku dejin kartaa qofna waanad istaagi kartaa qofna waad ka qaadi kartaa qofna waad ku dejin kartaa waaya. maxaa ka saxbaa layidhi halkan waan baadi doonayaa markaa wixii ka saxa oo waxaynu idhi calaamad haddii calaamadii hoos taalo calaamada hoose hala raaco wax badan bay macnaynaysa waaya. maadaama aan idinkala fahamsiiyey baarkeerinka markii iminkana labadan maalmood aynu ogaanaynaa maxay kala yihiin walaalkayga qaaliga ahaw. halkan waxaa ku taala 8 ilaa 15 ama 8 ilaa 3 galabnimo. dee maalintaasi waa maalintee waynagii soo baranaya mar hadday casaan tahay. maalinta casaanka wadamadani waxay u yaqaanaan maalinta axadda waa axad luqadda iswiilishkana waxaa la yidhahdaa sondag. maalintan wuxuu mamnuuc yahay baarkeerinkani oo aan lagu baarkemi karin 8 subaxnimo ilaa 3 galabnimo waayahay. sabtidii qowska lahaydna meesha way ka maqan tahay oo ma taalo waan gartay. halkanna 5 maalmood ee caadigii baa lasoo dhigay oo ka bilaamaysa isniin oo maalmahooda ah. maalmaha caadigii la shaqeeyaa waa isniin ilaa jimce iyo sabtidii axadna waa fadhigooda weliba maalintani hasii casaatay. marka halkan tootally waxaa ka maqan maalintii qoyska lahayd ee sabtidii way ka maqan tahay. axadna intan buu mamnuuciyey baarkeerinku sabtina intaasuu mamnuuciye isniin ilaa jimcana intaasuu mamnuuciya waaya. bal markaa aynu eegno waxa khaldan sidaynu u soo saari karno xisaabaha. sidii wuxuu yidhi the artiloted waxaa la ogol yahay ad baarkeera inaad ku baarkin garayso for dogar maalmaha caadiga ah colocan femtonolno hadeed inay been tahay baan ku tusay. maalmaha caadigii waa kuwan buu sheegay
kolokan femta nool baa la ogol yahay buuri inaad ku baarkin garayso 15 ilaa 17 buu dhamaanayaa 15 halkan buu ku dhex jiraa waana been oo maalmaha caadiga 15 ma dhigi kartid sidaasay siiduna xaaraan ku tahay bidii buu ka hadlay diyaartilootet waxaa la ogol yahay aad baarkeeda inaad ku baarkin garayso soondoogar maalmaha soondoogar waa maalmaha casaanka maalinta casaanka ayaa xadda weeya kolokan ota nool 8 subaxnimo 8 subaxnimo waad ku baarkin garayn kartaa maalin xadabuud axadii waatna waa casaan 8 subaxnimo waaba markuu mamnuuc yahay miyaad dhigi kartaa waa maya weeye su-aasha saxdii waxa weeye waa aada diyaartilootet waa la ogol yahay aad baarkeeda inaad ku baarkin garayso heliya friya loodhag loodhag sabtida 9 subaxnimo waa la ogol yahay inaad ku baarkin garayso waaye sabtidii meeday sabtidii qows bay lahayd sabtidii meesha kuma taalo laakiin labadaniba inay khalad yihiin baa lagu fahamsiiyey maalinta sabtidu waa inoo free waananu iska dhigan karnaa iyagunbaa 9 soo hondeeye maadaama uu 9 bilaabmay waan iska dhigan karnaa macnii maalintii sabtidii waa inoo free loodhag waa sabti soondagna waa axad soondag axadda maan dhigi karnaa 8 may waa khalad waa tan 15 kana maan dhigi karnaa maalmaha caadiga may waa khalad ta saxdii waxa weeye waa ta sare maalin sabtiya waan dhigi karaa 9 subaxnimo waayahay su-aashuna sidaasay sax waana aada number 29 ilaa hadda baarkeerinadii baynu ka sheekeynaa shuguniya 29 waayahay su-aashan waxaa lagu yiri what are red maxaa sax maxaa hee sax okay marka waynu baadin doonaynaa horta marka hore waxaynu ku horeynaa calaamadan sare ee egaskii waa maxay kow aynu u abtirino sida geela loogu abtiriyo inay hebel hebla hoobaan hebel marka hore waa calaamadii mamnuucii mar hadday wareegaacas leeyihiin mar labaadna buluugaasi hadduu ku dhex jiro kuwa kale kuma jiraane waa calaamadaha baarkeerinka ka sheekeeya weliba tani waa ta ugu madaxa weyn le waa egas egasow macnaheedu muxuu yahay waxa weeye mafooyinta istaana oo baarkeera mana istaagi kartid kumana baarki garay kartid labadaba way mamnuuc intaad istaagto qofna kuma dejin kartid qofna kama qaadi kartid calaamadaasi meelay ku tahay waxna kama raadi kartid waxna kuma dejin kartid kumana baarkin garayn kartid labadiiba way mamnuuc waaya calaamadan hoosaa tiri haddaba aniga halay dhegaysto amarkayga maalmaha caadiga waxay labada arrimoodba fulayaan ee kuma baarkin garayn kartid mana istaagi kartid waxay maalmaha caadiga shaqaynaysaa baa la yiri 10 subaxnimo isniin ilaa jimce ilaa 18 oo 6 galabnimo ah 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo 5 cisho ee maalmaha la shaqeeyaa intaasi waa mamnuuc lagu baarkima casaankii baa soo raacay oo ah maalinta axadda iyadana waa 10 subaxnimo ilaa iyo 3 galabnimo laakiin meesha waxaa ka maqan maalintii sabtidii qowska lahayd intaa markaynu isla qaadanay aynu intaa isla helay baa halkan haddana waxaa ku taala
calaamadii aan egaska ahayn baa soo hadhaga halkaa ku taala. halkana waxaa ku yaala ovriga teed wixii intaa dheer. ovriga teed wixii intaa dheer wixii intaa dheer hee laguma baarki garayn karo laakiin waa la istaagi karaa. wixii inta la soo sheegay dheer labadan maalmood wixii dheer ovriga teed dadku way ku dawaqaan. wixii intaa dheer waa la istaagi karaa laakiin laguma baarki garayn karo. waya su-aashu waa 29 waxa weeye dadku inta badan way ku dawaqaan. bal markaynu intaa isla helayaan sidaa macaan idinku macneey. walaalkayga qaaliga ahow tan baynu ka bilaabaynaa. duvoristan waad istaagi kartaa. mondag maalin isniina kolokan fentonolnol 3 galabnimo waad istaagi kartaa. maalin isniina mar haddii la yidhi 5 cishaynu ka dhex daydeena. goormuu bilaabayaa baarkeerinka mamnuuciisu? 10kii subaxnimuu bilaabay. 15kaasna waa saddexdii gudahayba ugu jirtaa. miyaad istaagi kartaa? may. soo tan lagu yidhi mondag tilfridag xilligaa isma taagi karta. istaana waa istaaga hadda baarkeerin maaha. taasi saasay khalad ku tahay qofka koobaad ahay. biidu wuxuu yidhi duforistana waad istaagi kartaa. sondag waa casaankan kolokantiya noolnol 10ka subaxnimo waad istaagi kartaa. waa kan 10kii dee walaal isma taagi karo. dee uba baarkeerinkii waaba bilaabmaya oo labadaasiba saasay khalad ku yihin. su-aasha u dambaysa duvoristana waad istaagi kartaa. saddexduba waa ilmo istaag. sondag axad maalin axada kolokan fentonolnol 15 waad istaagi kartaa. okay baarkeerinkan waxa u dambeeya oo uu mamnuuc yahay 10 ilaa 15. laakiin imika 15kii markaad timaado wixii ka dambeeyay waad istaagi kartaa. 15kii baa timid. wixii ka dambeeyay waad istaagi kartaa baa lagu. okay saynu isu taagi karnaa ilaan halkana ovriga teed baa layidhi. wixii 15kaa markaa ka dambeeya 15kaa ka dambeeya waxaa mamnuuca un baarkeerin laakiin waa la istaagi karaa. maadaama aan egiska ku oolin waa la istaagi karaa. su-aashuna saasay sax ku tahay oo 15kaa markaan soo dhigto wixii ka dambeeya waa ifri. inta badanna marka baarkeerinka la bilaabayo dee 15 hadduu ku joogo 16 lagama bilaabo. saacaddaa u dambaysa halkaa waa lasoo dhigaa. waa siday iyagu sharciga u dhigteen wey. qaar dad badan baa soo weydiiyey macalinka maadaama 15 ku qorantay maxaa 16 loo dhigi waayo. ee iyagaasaan u dhigtay oo dadka ku baraya. marka waa sababta lagu leeyahay. gaari baad soo dhigatay baa lagu yidhi maalin isniin ayaad gaari soo dhigatay. su-aal baa ku imanaysaa 18kii baad gaari soo dhigatay. goorma ayaad ka qaadaysaa? berito maalinta ku xigta. okay isniin baan 18 soo dhigay. 18 markuu dhamaaday baarkeerinka ayaan soo dhigay. olayaa maalinta salaasada kolokantiyaan ka qaadaya. 10kaan ka qaadaya ilaan 10ku baarkeerinka bilaabmaya. sidoo kale waa dee 15 haysoran 9ka waa inaan ka qaadaa. 9ka ilaa 10ka xaq baad u leedahay. laakiin 10kii markuu saa u bilaabmo ayaad xilligaa wixii ka dambeeya u bilaabmaya baarkeerinku. sidoo kalena saasunbuu 15ka wixii ka dambeeya bilaabmaya. saasay noqotaa. xisaabtu 9 kama sii bilaabmaya baarkeerinku. 10ka unbuu ka bilaabma.
xaggan kalena kama bilaamayo 16 kama bilaamayo taa u dambaysay lagu joojiyo mubaarkeeran kaaga bilaamayo markaa su-aashuna saasay sax ku tahay waana siida waayahay wadaad waayahay waxaynu gelaynaa labartaydi soddon baynu gelaynaa walaalayaal baaraka allahu fiikum soddon haddana laguma macnayn waatan waxyaalaha lagugu khaldayo waxaa kamid ah laguma macnayn tan lafteeda waxaa lagu yiri filkan Boston de arrintii iyadana marka bilaabo war waxaan maxaa ka saxa waa wax la iska ka weydiinayo adaa lagu barayaa inaad waxaan macallin ku noqoto waaya maxaa haddana waxa haddana marka hore waxaan eegay calaamadda baan u abtirinaya waa inay waa calaamadii mamnuuci mar haday wareegaalay haye gudahana waa ka buluug oo waa calaamadii baarkeerinka haye halkana waxa ku yaala eges kana macnihiisu waxa weeye mafooyinta istaana oo baarkeera mana dhigi kartid mana ku baarki gareyn kartid mana istaagi kartid intaa markaas la fahmay sidaa u qeexay ayaan dabadeedna haddana tan hoose u dhaadhacay maalmihii kale sabtidii kuma jirto oo qows bay lahayd axadii casaankana kuma jirtee shantii cisho unba halkan lasoo dhigay shantii cisho waa moondaag tilfriidaag waa isniin ilaa jimce waana inuu sadaa mamnuuc u yahay arrinkan oon laguna baarki gareyn karin lana istaagi karin 11 subaxnimo ilaa 5 galabnimo elba til qutonono waayahay bal markaa maxaa kalaas waxaan baa lagu yiri bal waa inaad fahmi kartaa wax they are for beauty waa mamnuuc at baarkeera inaad ku baarkin garayso waa mamnuuc inaad ku baarkin garayso maaha istaag lagama hadlayo baarkin garayso for dogar maalmaha caadiga kolokan shugunolno maalmaha caadiga inaad ku baarkin garayso 8 habeenimo waa mamnuuc mamnuuc baa inaan 8 habeenimo ku baarki gareeyo maalmaha caadiga waa beentii waan ku baarki gareyn karaa su-aashaas inay been tahay sidaasaan ku ogaaday waayo baarkeeringu wuxuu ka bilaamayaa 17 20 waan ku baarki karaa su-aashaas saasay been ku tahay talabaad baynu gelayna they are for beauty waa mamnuuc aad istaana kaasi baarkeera buuha kana aad istaana inaad istaagto soon doogar maalin axada kolokaan 6 markay tahay saacadu 4 galabnimo inay tana been tahay aabaheed iyo hooyadeed axadiba meesha kuma jirto soon daag miyay markan ku jirtaa maya su-aasha u dambaysa they are for beauty waa mamnuuc at istaana labadan baa isku dhow waa la isku khaldaa istaana inaad istaagto for dogar maalmaha caadiga kolokan fentonolno 3 galabnimo inaad istaagto maalmaha caadiga waa mamnuuc su-aashaas inay sax tahay waxay noo sheegay halkan miyaynu istaagi karnaa 3 galabnimo maadaama 5 galabnimo ay dhammaanayso maalmihii caadigiina ay tahay for dogar waa maalmihii caadigii 15 miyaan istaagi karnaa waa maya tan baa sax waa mamnuuc inaad istaagto maalmaha caadiga 15 waayo 17 ay dhammaanayaan badee oo ah 5 galabnimo 3 miyaan istaagi karnaa su-aashuna siiday sax ku tahay wasiida
walaal waxaan aayartaa kuugu dhigayaa walaalkayga qaaligaho yaa akhi alcasiis yaa bilgaali inaad ila fahanto oo aad adiguna macallin sii noqoto kuu bari maayo inaad noqoto qof xaasidahoo intuu waxan yar helay naqshadan xaday war waad ogtihiinoo meelaha qaar iskuullada lacaga badan baa laydinkaga gurtaa oo ay dadyowga kale leeyihiin ee aan soomaalida ahayn oo weliba aad bixisaan idinkoon abaal ku qabin oo naf soomaali xataa laydinku macnaynayn lacagta orod baad ku dhiibtaa marka miskiinkan alle laydiin soo diray walaalkiina ka faa'iidaysta oo idinkuna laakiin idinma barayo halkan wax inaad markaad wixii barato aad la aamusto oo aad noqotaan sidii ninkii doctoorka ahaa ee inankiisii uu dhalay wixii uu bartay ka qariyey kadibna dhintay ee dadka kale sii bara ee walaalihiina xataa soomaalida dhaafoo dadka kale masaakiinta ah ee u baahan ee ajnabiga ah wax sii bara walaalayaal sida inagaba laynoo caawiyey oo weliba dad aynaan isku diin ahayn ay noo caawiyeen جزاكم الله خير الجزاء وايحي halkan waan gudbaynaa صدق كم بيدو قرينا هذا لما نسلا مديرين سوداي بيدا كيسين تنوع بيك سيدران تايتي هرو حلقوني فيلكيت الترناتيف استعمر الترناتيف يدن كيبا كو حابون بالي ama ku haboon ama ku saxa ama ku wanaagsan ama waxa doonto ina luqadeena maahay bariyaanu yaryareen oo ingiriisiga baran jirnay ayaa markaanu khaladno macallin intellectual ayaan oo si fiican u yaqaanaan bari jiray Soomaaliya laakiin aad u khibrad badan oo markaas uu arkay inuu xishoonayno gabgabo markaas uu oran jiray waxa tiraahdaa it's not my mother language war markaad ku ciyaartaan hadii ay luqadda maxaad ku ciyaaraysaa afkaygu hooyo maaniga wax iga galay ma jir dhax marka waxa weeye inagu afkayni ma kuwii bartay jaamacadaha ka baxay waa xaasidnimo guryaha la yuuray Sweden oo meel walba Ingiriiska la yuuray oo wax ma tarayaan noqdo ummadii walaalahooda Soomaalidii u faa'iideyn la marka de wixii aad barato sidii aad umada u gaarsiin karto u gaarsiin wata muhiimadii aan ka hadlay waxaynu soo noqonaynaa walaalayaal barakallahu fiikum su'aashan marka bal hadda intaynaan jawaabahan u gelin ila maxaa waxan ku haboon baa leeyahay marka hore calaamada baan qeexaya waa ina ayo mar haday guduudka wareegsan leedahay lixdana eegaska ku wadato marka hore wareegani waxa weeye waa calaamadaha mamnuuca marka xigana buluuga wuxuu raacaa iyo casaankani markay israacaan waa calaamadaha baarkeerinka mar saddexaad kana dhexda eegaskan baa kaga taale eegaskan waxay ka dhigan tahay isfana taagi kartid kumana baaki garay waa maalmahee baa sharcigani uu shaqaynaya saddexdii maalmood halkan waa lagu soo qoray haddaba si fiican u baro daawado 16 ilaa 18 waa afarta galabnimo maalmaha ay shaqeeyaan ee isniin ilaa jimce waa afarta galabnimo ilaa iyo 6 galabnimo afarta galabnimo waa 2 saacadood qura ilaa 6 galabnimo waa maalmaha caadiga Monday Friday ama isniin ilaa jimce waayahay maalmaha sabtidana waan weydiiyey sabtidu waa tan qows kale waa 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo ayaa maalmaha sabtidana uu mamnuuc yahay in la istaago laguna baarkin gareeyo waayo maalmaha sabtidana waa kan casaanka 10 subaxnimo ilaa 4 galabnimo intaa waa la sheegay waan gartay baan markaa intaa haddaba wixii dheer taa damba haddana macna kala samayso waxay yiraahdeen
oo frigatid intaa wixii dheer maadaama ahayd egas markii hore lama istaagi karo lagumana baarki garayn karo intan wixii dheer egaskii ma leh laguma baarkin garayn karo laakiin waa la istaagi karaa ayay fasaxday in la istaagi karo ayay fasaxday intan wixii dheer wixii 16 ka dambeeya wixii 18 ka dambeeya 18 xilli waa la istaagi karaa tan dambaa markaa amar sii bixisay haddii mid amar bixiso tan ka sii hooseysa amar bixisa tan ka sii hooseysa la sii raacaya iyadoo labadaba la isku eedeeyo sharci oo tanna la ixtiraamayo waayahay bal markaa waxaynu doonaynaa maxaa khaldan waa inaynu soo saari karno aadaynu ku horeyna dufoor intay istaan isma taagi kartid mondag maalin isniina isma taagi kartid baa istaag bay ka hadlayaan markaa isma taagi kartid qof kuma dejin kartid qofna kama qaadi kartid oo isma taagi kartid maalin isniina 15 maalintii isniintii noo ballan gal isniintii 15 waat 15 isma taagi kartid 15 maadaama uu yiri isma taagi kartid maalintaa ilan isniin buu ka bilaabmaaba maalmo ilaa jimce isma taagi kartid buuri maalin isniina waayo calaamadana maxay tiri weyn ma istaagi kartid kumana baarki garayn kartid 16 ilaa halkaa ilaa 18 okay 15kii way ka horeysaa 16 soma waya markaa tan oo kale waad ku khaldamaysaa soonaysaa oo miyo haddii 16 ka bilaabmayay isma taagi kartidna la soo qoro maxaa khaldan isma taagi kartid waa sidee halka salaadu ka xirmilaada waa si weydiinaysaa okay dib baynu u dhiganaynaa markaa tan kalena waxaa lagu risiida duufoorinta istaana isma taagi kartid tan iyo tani labadaniba waa istaag loo dhaag maalin sabtiga 18 istaag lagama hadlayaba 18 waa tan istaag lagama hadlayaba 10 ilaa 18 intaa waaba mamnuuc xaaladdu waa mamnuuc isma taagi kartid kumana baarki garayn kartid waayahay haddaba halkan tan koobaad 15kii wixii halkan wixii intaa dheer baa laguma baarki garayn karo laguma baarki garayn karo laakiin waa la istaagi karaa calaamadda baa amar bixisay macnihii 16 15 14 16 12 kowdii labadii wixii xaggan dheer iyo wixii xaggaa dheerba laguma baarki garayn karo laakiin waa la istaagi karaa bay amarkan bay tani dhiibtay maadaama uu kana yidhi lama istaagi karo su-aashaa koowaad saasay ku burtay waayahay tanna istaagidii bay ka hadlaysaa lama istaagi kara bay tiri duuforinta istaana loo dhaa kolokaan oo tan noo leeg ma istaagi kartid baa layidhi ayay leedahay ma istaagi kartid amar bay bixisay tani inaan la istaagi karin haddaba halkanna waayey waa maalintu waa maxay loo dhaag waa sabti dee 16 waa xilligii la istaagaya u dambeysay waayo wixii intaa dheer baa lagu yidhi 10 ilaa 18 markay 18 nooga bilaabmayaa wixii intaa dheer laguma baarkin garayn karo waa la istaagi karaa tan baa amarka dhigtay in la istaagi karo kanna wuxuu leeyahay lama istaagi karo labadaas su'aalood bas saasay ku burayaan su-aasha saxdii waxay tahay
sidaan soo sheegay waa tan duuforinta baarkeera wey duuforinta baarkeera kuma baarki garayn kartid loodaad sabti kuma baarki garayn kartid 20:00 maalin sabtida inoo doon haddaba waaye sabtidii waata 20:00 waaye sabtidii baarkeerinku wuxuu ku ekaa 10 ilaa 18 waaye oo halkan 20 waaba ii freeba dee dadka qaasaasay odhanaya la 18 ka bilaabaya freebie okay yaa ii fasaxay markaa inaanan ku baarki garayn karin yaa ii diiday inaanan ku baarki garayn karin ofrigatid wakaa saa u qabo su-aashu waa bida waxaana ii fasaxay su-aashan inay sax tahay aan ku ogaanayaa duuforinta baarkeera kuma baarki garayn kartid sabti 20 way dadka markaa aan fahamsanin waxaan waniyo sabtidii waa 18 bay ku dhamaanaysaa 20 waan dhigan karaa laakiin ofrigatid miyaanay ku muuqan tan baa diidantay tan baa wax diidaysa mar walba tan hoose marka ofrigatid 18 sabtida wixii ka dambeeya waxa la ogol yahay inaan istaagi karo marka hadduu istaagni ka hadli lahaa sax bay ahaan lahayd laakiin baarkinku waa mamnuuc markaa su-aashuna saasay bida ay sax ku tahay waayahay aan sawirka soo qaado laga masaxo weli waxaynu ku jirnaa bal hadda imtixaankan eegayna qabsaday waa baarkeerinadii oo keliyaynu la dawaqsana waxaa u samaynaya anigu 70 su-aalood mar qura waan jiirsiin karaa laakiin waxaan diidayaa walaalayaal baaraka allah fiikum waxaan doonayaa dadkayga inaan si yaroo macaan u fahamsan su-aashan baa haddana layna weydiiyey waa iyadii oo kale filkan alternative stemer inti aan ku habboonayn tii ku habboon bay ahayd ku habboon maxaa ku habboon bay tii ahayd oo tii ku habboonayd baynu sheegnay tanna teen macquul ka ahayn waxaan la sheegaya teen macquul ahayn su-aalahan teen stemer ahayn waayo maxaynu yeelaynaa marka haddana sidii sameeyo qawaacidkii marka hore soo akhri oo abtir calaamadani marka hore wareegaa mar hadday leedahay waa ilmo mamnuuc buluuga hadday dhexda ku leedahayna waa calaamadaha baarkeerinka sheega egaskani hadduu raacina waxa weeye ismana taagi kartid kumana baarkin garayn kartid waaya maalmahee haddaba sharcigeedu shaqaynaya wey 3 maalmoodna halkan waa lagu soo dhigayo ofrigatid maalmaha caadiga waa sidii 16 ilaa 18 waa labadii saacadood 10 ilaa 18 waa sidii 10 ilaa 16 tan markaa qowskani waa sabti taasina waa isniin ilaa jimce tan u hooseysana waa axad iyo casaan ofrigatidna waxaa lagu yidhi waad istaagi kartaa laakiin kuma baarki garayn kartid intaa markaan sidaa u liqay ayaan markaa fakerayaa inaan xaqiiqda la soo baxo oo aan soo saaro waaya maxaan habboonayn bal duvoristana waad istaagi kartaa mondag maalin isniina 15 maalin isniina miyaan istaagi karaa 15 waa halkan 16 gadaalo inaanan istaagi karin yaa ii diidaya
aan ahayn weeyaan bis teemar ahayn teen ku habboonayn weeye teemaan ku habboonayn waad istaagi kartaa weeye taasi isniin 15 talabaad tanna waxa weeye duubooristaana sondaa kolokan sigisto noolno waad istaagi kartaa maalin axada 16 16 ma istaagi karaa halkan waxaa la yidhi halkan kaadi waxaa la yidhi intaa wixii dheer isma taagi kartid biidna muxuu yidhi duvoor baarkeera waad baarkeerayn kartaa waad ku baarkeerayn kartaa maalin isniina 20 waad ku baarkeerayn kartaa markaa waxaa loo baahan yahay inaad khaladka meesha ku jira aynu soo saarno walaalkayga qaaliga aho labadani way habboon yihiin ee ta aan meesha ku habboonayni waa tee eegaregani waxa weeyaan maxaan meeshan ku habboonayn oo ka khaldan sheeg waxaa ka khaldan ta wax khaldaysa sheeg baa lagu leeyahay ta wax khaldaysa noo sheeg 2 ta wax khaldaysa walaal waa biida sababtana anaa kuu sheegaya ta wax khaldaysa horta waa biida waa tan biidi waxay leedahay duufoor baarkeera waad ku baarki garayn kartaa baarkiin bay ka hadlaysaa maalin isniina 20 eber waaye taasumaan ursanayna inay been sheegayso oo aanay sax ku ahayn iyo inay sax ku tahay meesha maalin isniina 20 miyaynu ku baarki garayn karnaa haa okay isniintii waa tan isniintii baarkeerin baa laga hadlayaa istaagid lagama hadlayo baarkeerinkii wuxuu mamnuuc inaga yahay 2 saacadood oo ayuu baarkeerinkii mamnuuc ka yahay 2 saacadood markuu halkan ka yahay ee mondactyl freedag halkaasi uu kuu sheegay maalmahaas halkanna wax alla wixii dheer oo dhan buu mamnuuc ka yahay oo waa kan baarkeerinka haddana ofrigatid wixii halkan xaggan u dheer iyo wixii xaggan u dheerba baarkeerinku waa mamnuuc waaye marka dadku waxay isweydiinayaan haddii aad maalin isniina 20 soo dhigtay dee halkan 18 bay ku jirto xaq baad u leedahay laakiin inaad xaq u lahayn waxaa caddaynaya dee tani maxay ka shaqaynaysaa tan baa ku tiri wixii intan dheer waad la istaagi karaa bay ku tiri waa la istaagi karaa laakiin laguma baarki garayn karto tan baa u diiday dee markaa maalmahan caadiga ah inuu 20 lagu baarki garayn karo tan baa diiday markaa su-aashani waxay leedahay waad ku baarki garayn kartaa maalintaa oo waa waxaan saxayn stemarinte tani sax maaha laakiin labadan kale inay daba sax yihiin baynu isla fiirsanayna haddaanay tani sax ahayn waa in labadan kale macno sameeyaan tan hooseynu usoo noqonaynaa duvoristana waad istaagi kartaa sondag maalin axada 16 istaag maalin axadii meeday waa casaan waa tan 16 baan istaagay 16 inaan istaago yaayo ogolaanaya ilaan 10 ilaa 16 marka hore tan waxay ahayd ismana taagi kartid kumana baarki garayn kartid laakiin amarkii yaa jabiyey calaamadani waxay tiri 16 laga bilaabo wixii dheer laguma baarkin garayn karo laakiin waa la istaagi karaa istaagii bay ogolaatay tani markaa saasay sax ku tahay tasaraynu u noqonaynaa duvoristana waad istaagi kartaa maalin isniina waad istaagi kartaa saacaddu markay tahay 15 waayahay
halkani 16 ka bilaabmay markii hore laakiin 15kii tan u soo noqo markaa tani maxay tiri laysmat laguma baarkin garayn karo wixii intaa dheer laakiin waa la istaagi karaa ila baarkeerin bay ka hadlaysaa keliya markaa 15 14 13 dhammaan waa la istaagi karaa xaggana 18 19 20 waa la istaagi karaa marka istaaga tani may mamnuucin laakiin baarkeerin bay mamnuucin labadii markaa saasay steamer ku yihiin labadani waa steamer sida iyo aad waa steamer oo waa wax saxa laakiin steamer intii yaan ku habboonayn meesha yaan sax ka sheegin ee tan baan sax ka sheegin su'aashuna saasay sax ku tahay waayahay wadaad 3 baarkeerinadii baynu weli ku jirnaa kani waa aad u fudud yahay kan buluuga waa aad u fudud baarkeerinka waxaa lagu yidhi walaalkayow labadan horta calaamadooda isfuulay kala saaro ta sare waa baarkeerin biidaasoo keliya hadday kaa soo horbaxdo adoo meelaha maraya highway ama meel kala maraya cilla maraya oo aad istiraahdo wallahi iska yarnasa gaariga halkan dhigo oo daasho biidaasoo keliya aad ku soo baxday oo dabeedna aad u daalan tahay su-aal baa ku imanaysa waxa lagu yidhi biidaasoo khaliyaad la kulantay imise saacadood baad xaq u leedahay inaad ku baarkin garaysa halkaa uu tanaad wataala aan yifti adigoo aan wax lacaga bixinayn 24 saacadood baad xaq u leedahay 24 saacadood ayaad xaq u leedahay laakiin haddii calaamadii hoos taalo tan baa awoodda leh oo xadidaysa inta la taagnaanayo baarkeerinka halkan waa sidii tan hoose waa sabtidii qowskii 9 ilaa 15 waa 9 ilaa 3 tan axadina kuma taalla casaankii maalmaha caadigana waa 9 ilaa 18 mondag till friday isniin ilaa jimcana waa taasoo dee waa la yaqaanaayo 9 subaxnimo ilaa 6 galabnimo haddaba halkan sare hal saacadaa ku taalla halkaas saacadood hadday meeshaa ku taallo waxa weeye matalan gaariga waxaad soo dhigtay 18kii maalin isniina goorma ayaad ka qaadaysaa baa lagu yiri maalinta ku xigta 18 baan soo dhigay wuu iska olayaa gaarigu maalinta ku xigta waa maxay waa salaasada halkii 9 subaxnimo aan ka qaadi lahaa halkaas saacad waan ku darsanayaa 10kan ka qaadaya yacni halkaas saacadood waa ii egasta oo way igu jirtaa in sidaa loo fahmo markaa haddii isniin aan sabti baan maalin sabtiya ayaa waxaan soo dhigay 7 subaxnimo goormaad ka qaadaysaa baa layidhi 7 subaxnimo aan soo dhigay waxay ahayd inaan 9 ka qaado oo sabtiya halkaas saacadda waan ku darsanayaa 10kan ka qaadaya marka maadaama ay sidaa tahay oo halkaas saacaan xaq u leeyahay inaan ku darsado ayaan su-aasha layna weydiiyey baan usoo noqonayaa waxaa lagu yidhi duhar baarkeerad biilan loo daag waxaad gaarigaagii ku baarki garaysay maalin loo daag haddaad rabto waa sabtigii waata saacaddaan soo dhigay waa imise shuugu 00 habeennimo ayaad soo dhigtay maalin sabti ah waaya waa ii free marka xilligaa aan soo dhigay sabtida 15 ku dhigay waa ii free halkan 15 baa ku qoran wixii ka dambeeya adigu waa ii free waayahay intaa markaas saa u ogaaday macnihii sabtidii oo dhan gaarigu wuu yoolayaa axadina meesha kuma taalle waa ii free oo igu dar maalinta isniinta goormay tahay inaan ka qaado 9 isniintaan ka qaadi lahaa halkii saacadooda freegana igu dar waa 10 markaa isaa loo fahmo weeyaan su-aashu
33 waa aada weeyaan waa aada su-aashu inayna ku taagna maaha waa in halkaas saacadu la fahmaa su-aashuna sidan bay sax ku tahay si kale aan u dhigayaa idinku baraya haddana maalin salaasa baan gaariga waxaan soo dhigay 18 19 baan soo dhigay maalin salaasa goorma ayaan ka qaadayaa baarkeerinka gaariga si aan lacag leeyahay salaasadii oo dhan buu gaariga oolayaa maalintii arbacadii 9 keenan ka qaadayayd halkii saacadooda extra aan ku darsanayaa 10ka arbacadaan ka qaaday waa sidaa tan su-aashan dambaan keenay waa for example aan idinku tusayo laakiin tii hore ee dee su-aashani sax ku ahayd waa aniga halkan idinku sheegay inay tahay isniinta laakiin tan kale waa for example aan idinku tusayo inaad usii fahantaan ay isku khaldina waya masax to afar iyo soddon waa isla sidii waxaa lagu yidhi haddana waa baarkeerinkii kani waa baarkeerinkii oo maxaad xaq u leedahay haddii aan calaamad hoose la socon 24 saacadood ayaad xaq u leedahay inaad joogto oo uu free ku ahado gaarigu aan wax lacaga lagaa qaadin haddaba inuu soo noqono calaamadan hoose waa sidii waaniga sabtida waa imsida goormaan soo dhigayaa 9 ku bilaabmaya ilaa 3 isniin ilaa jumcana waa imsa 9 subaxnimo ilaa 18 halkaas saacadoodna ku darso waa ku free raaso haddaba balay su-aasha si ordaynu uga jawaabayna duu baarkeera dimbiil gaarigaagii baa digtay en mondaad maalin isniina saacaddu markay ahayd 7 subaxnimo waa tan kuu sheegi 7 subaxnimo isniintii meeday halkan bay ka bilaabmaysa 7 subaxnimo ayaad soo dhigtay okay ونار مستدو سينستي هم كبيرا غورماد كقالي ساغاري اوكي سنين بان سو دغاي تدبدي subaxnimo waatan way todobadii subaxnimo baan soo dhigay baarkeerinku goormu bilaamaya 9 ilaa 18 halkay saacadna ugu dar 10 todobadii subaxnimo soo dhigay 9 keedina aan ka qaado halkaas saacadna ugu dar 10 subaxnimo ee waatan inaga isku raagayna isla isniintii aan soo dhigay baan 10kii todobadii baan dee baarkeerinkan todobadii baan soo dhigay 9 kan ka qaadi lahaa halkii saacadee free gaana igu dar dee waka 10ka subaxnimo aan ka qaaday su-aashuna saasay wax ku tahay marka walaalayaal inaad fahantaan baan doonayaa wax badan oo gab lagu dhameeyaa gab bay kusoo dhamaadaan marka inaad ayay fahantaan baan doonayaa ayay fahantaan بارك الله فيك وياي كم باشا قدر كنيسة وياي halkana waa baarkeerinkii oo haddana calaamad kale la hoostiga waayahay sabtidii qoyskii kuma taalo axadina kuma taalo waa maalmihii caadigii 8 ilaa 2 okay halkana 2 saacadood oo free ah dhakada la saaray la soo waa intii weligaa baro marka hore saacad waa haddana 2 la saaray waayo maxaa la weydiiyey su-aasha sonigan ka adkaaday duu baarkeera dimbiil mondaad gaarigaagii waxaa soo dhigtay maalin isniina saacaddu markay ahayd 13 tarato noolno halkan baad soo dhigtay 13 markay ahayd wata 13 markay ahayd 14 na way tahay way ugu dambeyn way tahay oo foliyadoo maalmaha soo socdaana RN bodoga waa maalin caadiya maalmaha caadiga ee bodoga
naar mastidu seenaseen kabila goormayd inaad ka qaada ay tahay allahu akbar waayahay haddaba waxaa xusid mudan 13 markaan soo dhigay labadan saacadood iyo halka saacee laysiiyo labaduba laba arrimood bay u dhacaan xaggana way ka koraan labadaas saacadood lagu siiyey waa laba saacadood oo mar walba aad xaq u leedahay oo iga salaam markaad soo dhigto laba saacadood baad xaq u leedahay inta badanna baarkeerinadan mararka qaar waxaa la duldhigaa baarkeerin khiifo wax la yidhahdo qaarkood marmar bay ku timaadaa caynka oo kale khiifaa la duldhigaa qaarkood marka iminka oo kale halkan 13 baad soo dhigtay kowdii waa ku free markaa xaggan 2 saacadood baad lahayd gaarigu maalintaasoo dhan wuu iska oolayaa halkan gaarigu waa ku free isniin oo dhan maalintii salaasadii 8 subaxnimaa timi ayay ahayd inaad ka qaado labadaas saacadood ee freegana u geyso waa 10 waa siida weeyaan waa siida laakiin waxa aad u wanaagsan in la fahmo labadan saacadood matalan gaariga markaad soo dhigto labadaas saacadood xaq baad u leedahay waa ku extra mar walba labadaas saacadood meelo badan oo beelaa jira imka waad soo dhiganaysaa markaad soo dhigato hal saacada dhakada kugu taala macnihii tigidhkii hadduu lacag yahay markaad goosato tigidhkii goosatada shilka saarto saacadii aad goosatay waa la arkayaa halkii saacadoodna way kuu dul socotaa oo matalan adigoo saacadii aad goostay kaa dhammaato halkii saacadood ee freegaa ku jira hadduu ninka wax baarayaa yimaado saasuu eegaya uu arkaya inaad hal freegaagii aad cunayso oo saacadii lacagtii aad goosatay ay kaa dhammaatay marka mararka qaarkoodna baarkeerin khiifa waxa la yidhahdaa ayaa la saaraa waa aniga youtube-ka soo dhigay bahalka yare la wareejinayo saacadda lagu wareejinayo marka labadan saacadood mar walba waa waxaad leedahay oo ku extra xagga dambena way kuugu hari kartaa xagga horena way kaa caawin kartaa dhexdina way ku jiri kartaa oo xilligaad soo dhigtay bay ku xiran tahay in la ogaado exactly la ogaado haddii bank automatic meel lacag uga goosanaya ay tahay gooso dul saar labadii saacadeed siyaadadiina way kugu jiraan sidaada ula soo marka insha allah saasaynu insha allahu tacaala halkaana ku dhamaynaa tiistag kalokantiya noolno warka in la fahmo uun baa fiican baarkeerinka waayahay waa isla sidii uun isla tii uun baa inagu soo celiyey maxaa lagu yidhi haddana waa labadii saacadood ee extraha maalmaha meesha ku yaalaana waxa weeye 8 ilaa 18 oo maalmaha caadiga ah 5 cisho iyo sabtidii iyo qowsle oo 8 ilaa 2 galabnimo ah waana xagga sarena waa baarkeeri su-aashu manan ka raacayna dhakada sare duu baarkeera dimbiil un istaag isniin baa haddana lagaaga dhigay saacaddu markay tahay 16 isniin waa 16 labadii saacadood baa lagu fahamsiinaya 16 baan soo dhigay halkaa isniin tan baa si fiican lagu fahamsiinaya oo folian the dog are in for dog maalinta ku xigtana waa maalmii caadigii goormaad gaariga ka qaadaysa waa goorma maalintu isniin waa arbaca weeye arbacaad soo dhigtay halkaa 16 waayahay arbaca markaan 16 soo dhigay arbaca 16 baan soo dhigay ayee allahumma salli ala maxamed arbaca ayaan 16 soo dhigay labadaas saacadoodna halkan bay igu yaalaana waa ii free arbaca oo dhan gaarigu saasuu oolaya maalinta ku xigta waa maxay khamiistii bay ahayd inaan 8 subaxnimo ka qaado kadibna 2 saacadood oo dhakada ii yaalaan ku darsaday 10
waatan tuushtag kolokan 8:00 ilan unistag waa arbacadii tuushtag kolokan 8 nay waatan tan labadani way isku khaldamayaan fiiri aniga bay khaldi gaadeenba tuushtag waa iyo tuushtag khamiis iyo khamiis balsa lagu khaldayay ma 10kaynu dooranaa mise 8kaynu dooranaa maya 10kaynu dooranayna waayo waxay ahayd 8 ku joogay laakiin 2 saacadood siyaara leysiyay waa 10ka marka su'aashu saasay sax ku tahay allahumma salli ala maxamed waa bida waana tambay sax ku tahay labadan ayay ku khaldin labadaba waa tuushtag laakiin midna waa 8 midna waa 10ka de 8 labadii saacadood ee gastriga markaa iska tuura marka waa 10ka marka mid kale in la fahmo oo wanaagsan ayaa in la fahmo fiican oo aad u haboon waxa lagu siiyay labadaas saacadood xaggana u dambana waad ku leedahay xagga horena waad ku leedahay oo maadaama uu soo dhigay 16 4 galabnimo uu soo dhigay labadaas saacadood free way waayeen sidaas uu isniin oo arbaco oo dhan u joogay gaadhigu yaalay khamiistii 8 subaxnimo qaadina labadii cisho haddana xagga hore kaga darsaday labadii saacadood taas uu 10ka ku noqday waayahay halkaa waxaynu ku joojin doonaa baarakallahu fiikum baarkeerinadii bal ugu dambaynaynu raacino baarkeerinkaas oo raacay labadan baarkeerinay bahalkan ismusha baynu raacinayna baarkeerinkani waa baarkeerinkii caadigaha laakiin yaa ku baarki garaysan kara wey waa dadka curyaan baaskeel curyaankii uu saaran yahay miyadkan qofkan waa dadka handicapka dadka waxa يعني dadka handicap lama oran karo waa dadka ama curyaaminta ama qaar baa qalbiga la qaar baa meel badan la marka kamuunkaas oo siya kaar yar ama gobolka ay ka tirsan baa kaar yar siya kaarkaas oo markaa ayuu dul dhigaa muraayada hore halka dhigaa si hadhow aan loo ganaaxin meesha uu dhigayana waxa ku sawiran baarkeerinkiisana waxa ku sawiran baarkeerina uu ku yaala calaamadana uu ku sawirantay marka meelaha calaamadana ku sawirantay isma taagi kartid dadka caynkaas ayaa iskale su'aashuna waxay tahay waa inuu qofkaasi haystaa ogolaansho waa inuu haystaa ogolaansho waa inuu ka haystaa kamuunka ama gobolka waa inuu ka haystaa ogolaansho card ka sita marka waa kan su'aashu waa saarkhil triston wataata saxdi waa inuu triston haysto tristonku waxa weeye ogolaansho waa inuu haysto qof yaa dhigaya rural sehinder hindarade waa ka rural sehindaraha ka waa qofkan dee maaragtay rubistuulka ku fadhiya ama wayba noqon kartaa say dadka qaar ku macneeyeen qaarkood dadka qaar baa xanuuna kale leh oo qaarkood baa lugaha curyaanka ah dhaar baa siyada adigu fara badan yahay noocaas lama soo koobi karo laakiin eriga lagu xafidaa waa ka rorse ka weyn eriga oo midkaasoo haysta saarkhil triston u khaasa haysta oo loo ogolaaday kaun baa dhigan kara su'aashuna waxay tahay filka for barker yaa dhigi kara boem barkeering plus meel barkeering plus oo for ay ku qoran tahay rorse erigaas ku qoran tahay hindarada waxaa dhigi kara oo keliya qofka haysta triston ama qofka ogolaansho haysta barakallahu fiikum aad baan idin salaamaya jazakumullahu khayran jazaa وما سنتين halkaas aynu isku daynaa inaynu caawo ku joojino aad ugu ceshada mar 2 3 haddii haddaba aad ku cusub tihiin maaragtay youtube-kan ama youtube-kaya samafale macalin jaamac oo aad rabto cajaladii hore ku dhaafay inaad dib u daawato kuwa cusubna aad la jaan qaado oo maalin kasta wixii aan soo geliyo daqiiqad gurigaaga aad u joogo ay kuu soo dhacaan fadlan youtube-ka subscribe jabsi gambaleelka tag gambaleelkana kaweyn taabo gambaleelka weyn ee uu toos kugu soo dhacayo mar walba halkan waxaad raacin doontaa like
sheer ku qabo oo dadka walaalaha ayaa u baahan ee ingiriiska imika hablo badan baa u baahan oo haween badan baa u baahan oo haweenkan aada u taageera oo maraykan oo canada oo meel walba oo yurub oo meel walba ka rid sheer ku qabo anigu adiga ayaan ku gargaaraya walaal soomaali adiguna walaal hal qof oo kale gargaar qofkaasina qof kale ha sii gargaaro wallaahi waxaynu noqonaynaa nicmo wallaahi nicmaynu noqonaynaa hadduu qofba qof sii gargaaro waan guulaysanaynaa hadduu qofba qofka nolosha kale u ogolaado waynu guulaysanaynaa haddaynu isdhiiri gelina waynu guulaysanaynaa ilaa marka dambe aynu fahamno nolosha dhabta ah oo ah dadka shacabka iyo soomaalidu inay isku tashadaan oo madax oo dhanba laga maarmo oo aynu inagu isu samayno udbilig waxa loo yaqaano luqadayada oo aynu xirfado dhallinyaradeenna u samayno gobol kastay soomaaliyeed ka joogaan oo aynu iskaashano aynu gacmaha isqabsano oo aynu ka maarno siyaasiyiin iyo waxyaalahan oo dhan oo inagu aan isdhisi karno taana waxaa lagu gaari karaa inaynu ku dayano dadyoogan soo baaba'ay soo balanbalay ee maanta nolosha aad arkaysaan caynkaa u qurux badan qasab ku sameeyey insha allah waan guulaysan doonaa waa macalinkii samafale macalin jaamac oo idinku dhaafaya sidaa iyo walaalayaal isma dhaafno baaraka allahu fiikum soomaaliya ha noolaato allah idin barakeeyo walaalahay baa tihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته